الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا علما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وآيات بقول يسديدي الله تنكمل سورة البقرة. qisadii nebi ibraahim baynu ku dhex jirnay ee dhismii kacbada. aayaadku way faahfaahiyeen xadiidka bukhaari ku sugan ee saxiixa ah, isaguna faahfaahin intan ka sii dheeraada ayuu bixinayaa oo ka warramaya dhismihii kacbada. wakhti yaroo kooban haddaynu siino, nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ciddii ugu horraysay ee samaysatay baalkan dhexda dumarku ay ku xidhaan ee boqorkiiyo dhaclaha iyo wax la yidhaahdo mooyaane waxay ahayd nebi ismaaciil hooyadii, aajaraa la odhan jiray. waxa ku xinaastay xaaskii nebi ibraahim nebi weynada ahayd oo saara la odhan jiray. marka si ay raadkeeda uga qarisay maradaa dhexda ku xidhatay oo xaggeeda dambe yara jiidayso raadka qarinaysa. wuu kaxeeyey nebi ismaaciilo nebi ibraahim calayhi salaam aajare iyo ismaaciil oo yaroo mujo ah. wuxuu dhigay halkaa imminka kacbadu ay tahay oo cidlo ah, magaalana ahayn kacbana ahayn. wuxuu u siday sibraar bii'ah iyo sibraar timira, labadiibuu u dhigay oo uu iska dhaqaaqjiyey oo waa tegey. islaantii way daba gashay, waxay leedahay xaggeed nagaga tegaysaa bay dhowr jeer ku celcelisay. wuu la hadli waayey. xoogaa markii ay daba socotay bay tidhi, ma ilaahay baa ku faray inaad halkanna dhigtood naga dhaqaajiso? haa buuli. jawaab qaaliya bay bixiso, waxay tidhi idan laa yudayicunaa, haddaa ilaahayna dayici maayo. kol hadduu sidaa ku faray na dayici maayo. meel taagan markii uu gaadhay oo buuraha maka iyagii uu ka yaro libdhay ayuu u soo duceeyey intuu soo qaabilay. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إلى آية قيبتي هذا الدنبال لقى قاعدو إلهي أوبط كيجي هالكيجي وحن تشي ماشا عدلا ضعها بادية بيطانا عن الهينة. إلهي سدا يسا ويلا ديني الدنيا بقى. إلهي بو بري. سورة إبراهيم آخر كذا كآخري كريسة الدعاء سيدي بكم مقنع اسكتجي سو أمر الله كل شقينية إلا أولياء إلهي وأسكر إلهي أمركم بيقاطع. أجرى أما النبي إسماعيل هو يدي نبي إسماعيل ندرس اللغة عربتها كفرعا، والنبي محمد نكتشرى عليه الصلاة والسلام هل كإسحاق يعقوب أي كفر عنته هاي غير بنو إسرائيل. مركي أي استبرار كي بيها هاي كي تمرتها ومردين aynankii xoogaa naaska ku duuday ee uu gaajooday ay baadiya biyo macnaha waxay cabtiya waxay cuntaba weyday ayaa yarkii oo laba boglaynaya eegan kari weydayoo kolba dhan bay u yara carartay. halkan imminka safa loo idhaahdo, buurtan yare safa oo dee kacbada masaajidka dhexdiisaba ah oo kacbada dhinaceeda bariya ayaa yara fuushay. waxba yara sheedaanisay, waxba weydoo xaggaa safay u kacday. labada buurood dhexdooda ayay yara guclaysay ilaa nafi orod bay kugu aamintaay.
marway haddana tagtay waxba yara bidhaamiso waxba way weyday labada buurood dhexdooday 7 jeer oroday waa halka orodkan aynu guclaynayna xajka iyo cumrada uu ka yimi weeye islaantaas lagu xusuusanaya dhikriyat weeye li ummahatin khalidat ooyooyinka taariikhdooda ay waaraysa lagu xusuusanaya markii 7 kolkay marwo taagantay ayay sanqar maqashay dabeedna way aamusiso waxay tiri sanqar baa baxaysay bal dhageyso khayr sida noqo way soo carartay yarka agtiisii bay timid iyada oo gurmadu soo fidiyay malakul jibriil oo halkaaba riigu ka taagay samsam la yiraahdo ceelkan samsamka la yiraahdo unba halka oo banaaneed ciribta ku dhuftay dabeedna wuxuu noqday riig rabbaani hoode biyaha soo booday biyo qulqulayay timi la jecladuna waa cajiib daharaad baa soo maray biyihii qulqulayay quuri weydo daryar bay u sameeyso ciidii bay ku joojisay nabi maxamed wuxuu leeyahay islaantaasi hadaanay joojin lahayn biyaha saa qulqulaana deyn lahayd wabi caalamka socdo noqon lahaa sida niil iyo furaat oo kale yarkii bay waraabisay iyadiina way cabtay wixii kale qaraab la siiyayna way iska intifaacsatay iyadoo halkii iska degan malaguna uu bushaareeyo wuxuu yiri ehelkii ilaahay baa tiina ilaahay idin dayici maaye halkaaga xajiso ku egow qolo wafdi oo soconaysa oo reer jurhum la yiraahdo ayaa yimid islaantii bay la hadleen oo waxay yiraahdeen biyahan adun baan kuugu nimiday inaanu ka cabnano ogolow safarka yagani waan idin ogolahay bay tiri laakiin maamulkooda ma lihidin alaale ilaan iska caadi bay hayd bani aadamku biyo baad baynu isku xiriirsadeen sidii odayaasheenu sarta ingiriiska haraga ay uga qorteen oo kale sameystay waxay tiri way idin ka cabi laakiin maamulkeeda ma lihidin ogaada ma lihin laakiin waa intifaacsan heshiiskaas la kala qortay way soo guureenba meeshu meel wanaagsan bay ahayd laakiin biyalaan baa ka jirtay bartii bay degeen muddo dheer bay yaaleen nin xoogahoo barbaaray buu noqday nabi ismaaciil luqada carabigana asal qoladaas u ahaa oo ku hadli jiray luqada carabigana si fiican buu bartay inaan bay u dhiseen islaantii way iska dhimatay ajare la oran jiray inta uu ka maqan yahay nabi ismaaciil nabi ibraahim afwan uu maqayo ma soo noqonba islaantiisii meeshan uu dhigay ilaa ay allaysatay wafaadaysay ma soo noqonba wuxuu yimi nabi ismaaciil oo nin weyn oo xaas leh xaaskiisii buu yimid maalin maalmaha kamida intii ilaahay u fasax soo siiyay kadib wuxuu ismaaciil mee waa qaraab tagay oo ugaar buu noo raadiyay bal noloshiina ka war hadii markay isu sheegtay in xaaskiisa tahay walaahi balaaye baas baan ku noolaa waa iska dhibanahay bay tiro islaam dayra badan ayay noqoto way ku yeedhisay wuxuu waxaad u sheegtaa salaaniga gaarsi albaabka fayaaradiisa inuu bedelan u sheeg ismaaciil markii uu yimidna anteena ilaahay baa u taagnayda awliyada ilaahay iska leedahay jawigiibu markiiba aabihii ka uriyay sidii yacquubba inamadiisu markay dhul fog soo marayeen sankiisu u dheeraaday uu uriyay iyagoo dhul dheer ka soo socda maanta cidimiyay ku timi ha oday wanaagsan oo aad u qurux badan oo haybad leh ayaa ii muxuu ku fariin dhaafay wuxuu iga tagay fariin in aan salaanku gaarsiiyo albaabkana aad fayaaradiisana bedesho kaasi aabahay buu ahaa wuri fayaarada uu sheegayaana waa adiga de iska magaalayso islaantaasi fariinta kamay faa'iidine way ka dhaqaajisay nabi ismaaciil uu iska sii joogay tukale uu guursaday muddo dheer kadib uu haddana nabi ibraahim yimid tiibuu la kulmay oo uu waraystay way bushaaraysay islaan iska barwaaqaysanoo iimaanku qanjaha joogay noqotayoo wallaahi waxba ilaahay un baa naga wanaagsanoo waxaliba waa khayr oo waa barwaaqaysana way bushaaraysay iyadana intii in leeg buu sheegay oo wuxuu yidhi salaana iga gaadhsii fayaarad albaabka catabadiisa ama fayaaradiisaana ha iska daysto haddii uu nebi ismaaciil yimid oo uu maaragtay soo hadhimo doontay isaguna dareenkiibuu mar labaad helay fariintiibuu weydiiyey intiibaa u sheegtay aabbahay buu ahaa buu yidhi waxaanu i amray inaan adiga ku daayo nebi ismaaciil halkiibuu dabeedna nin weyn noqdayoo macnaha xadiidkaasi ma sheegaya ubad uu sii dhalay laakiin de isaga iyo qoladii reer jurhum la odhanayay iska wada deganaayeen beri dambe ayuu nebi ibraahim
calayhim asalaatu wasalaam oo soconayaa yimid way ismucaanaqeeyeen isdhunkadeen laba ninoo dee isdhalay oo kala raagay markii uu la hadlay ay kala bogteen warkii kadibba wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu amray inaan halkan ka dhiso beyt gurigiisii ah oo loo soo xaji doono oo labadeennaba la ina faray inaynu dhisno waa wada fulinaynaa buuli sidaa aayaddan aynu dul maraynaa ay sheegayso 127 dhismii bay bartii ka jeexeen dhismaha maanta loo tukanaya caalamul islaami malaayiinka qof ku soo tukanayaan ee muslimiinta ah ayuu bilaabay wuu jeexay meel yaroo taagaba ahayd imika waa god laakiin meel taagabay marka ahayd kolkii ay gidaarkii xoogaa marinayaan dabcan nebi ibraahimna wakhtigaa daadiisu ay weynti ayaa tiigsigii iyo dhagaxa hinjintiisiibaa ku adkaaday halkan imika maqaamu ibraahim aayaddu ay dhagaxa ay ku sheegtay oo weyn buu soo hinjiyey ismaaciilna kuuli buu ahaa nebi ibraahimna wastaad buu ahaa kolkaasuu u dhigay dhagaxaasi sakhaalad buu uga dhignaa dabeedna intuu isku taagay ayay cagihiisu la diismeen oo taariikhdiisii sii muuqanaysa markii ay dhammeeyeenna ilaahay wuxuu faray inuu halkaa dadka uga yeedho waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamir ya'tiina min kulli fajin camiiq yeedhmadiina waa gutay ilaahay intii uu gaadhsiiyeyna way u xajaysaayoo waa u cumraysanaysaayoo waa taa tegaysa sidaasibaa ay ahayd taariikhda maaragtay kacbada iyo inta uu ku kordhinayo xadiidka saxiixa ayna marka aynu soo ururino وايه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ودعي نبي إبراهيم وبتكيسي ودعي ديني الدنيا وحي خير له وعلى ربنا إله يجيو وابعث فيهم وبتكيغا وحد كسر حسارتا مستقبلك رسولا منهم رسول يجي كميدا يتلو عليهم كد الأخرية آياتك قرآن كاغا ويعلمهم الكتاب كتاب كان برا معنيه سوف فهي والحكمة حكمة كتاب كاكوشرتئي أحاديث سنة بيامية ويزكيهم نظيفية وتربية داية إنك أذو أنت العزيز الحكيم كي أود بدن باتي عزيزة شيء والبنا حكمة ويالا إلهي وحر ومن يرغب يا نعيا من نعيوي عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي من نعيو إلا من قف بنعيو أو دينيا سفيها نفسه نفتيسي حميي ونعس كرغي سفيها نفسه قفك نفتيسي نعس نما وقوري أيا نبي إبراهيم دين تيسا كوكا عن صيريا ولقد اصطفيناه نبي إبراهيم وانو دورني في الدنيا دا إلهي با دورتي إمام نمائي الرسالة دي هرمود وإنه في الآخرة نبي إبراهيم آخرنا لمن الصالحين أنبياء ونكسن بكمديه إذ وقت حسن نبي محمد وضدك أشياء كورا تاريخ ديس قال له ربه إلهي سيبا كويري نبي إبراهيم أسلم أنيقا إيهو قانسن aniga igu xiran oo ii hoggaansan buu ilaahay oo adoon in noqo qaala marka nabi ibraahim baa wuxuu yiri isagoo jawaab degdega bixiyay aslamtu waxaan isu dhiibay li rabbil caalamiin ilaaha caalamiinta oo dhan iska leh waan ogolaaday inaanu islaamo oo aan isu dhiibo oo aan adoon u noqdo wa wasa waa dardaarmay bihaa diinta iyo tawxiidka ibraahiimu nabiga la yiraahdo wuxuu u dardaarmay baniihi inamadiisii isaga dhaxlayay committee buura aqeedada wanaagsan buu dhaxal uga tagu dardaarmay wa yacquubna isaguna diinta islaamnimada ayuu u dardaarmay inamadiisa waxa uu leeyahay mid waliba yaa baniya inamadaydiyow inna allaha astafa ilaahay wuxuu idin doortay lakum idinka ad-diin diinta islaamnimadu ilaahay idin xulay oo idin doortay oo idinku manaystay falaa tamuutunna hadimanina إلا وأنتم مسلمون إذنك أو إلهي أهجانسنو إيمان يا إسلام إركضا يا عسكري ونجريد هاي أنت معبر نبي إبراهيم وحى موقنا يسدا
uu ku ducaysanayay si ilaahay ku ilhaamiyay bahayd waayo durriyada ka farcan waxa kamida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummadii uu ka soo dhaxbaxay ilaahay ummadda rasuul iyaga kamida ka soo saar buu marka sida riwaayooyinka qaarkood ba sheegayaan wuxuu nabigu leeyahay waxaan anagu ahay baryadii nabi ibraahim ducadii ilaahay uu bariyay oo la aqbalay baan ahay waanu yahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidii buu u yimi ilaahayna markuu ummadan islaamka ummadna sheeganayay sidan ducadan buu markaa nabi ibraahim ilaahay uu bariyay in loo aqbalay ayaa ummadda ilaahay ugu manna sheegtay هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلهي وإله الرسول كايدين صادرين انتاسو خيرا ويدين لي waxa markaas nabi ibraahim ducadiisii ay noqotay inuu ilaahay rasuulka wanaagsan ummadda ka soo dhax saaro kitaabna uu siiyo rasuulkaasina kitaabka ummadda uu sharxo erayadiisa uu bariyo sida loo akhriyo macnihiisa sida loo fahmayo xikmadda sida looga qaadanayo yatlu calayhim aayatika wa yuallimuhum alkitab wal hikmata wa yuzakkihim intaas isugu daraya sida loo akhriyo asxaabtii nabigu nabi maxamed bay quraanka ka qaatay sida quraanka loo akhriyo isaguna malag uu ka qaatay marka sidaas akhrintiisu ay u sugantay tawaatur ugu sugantay oo ay tahay sidii nabi maxamed على ما تلقي من الحضرة الأفصحية النبوية جامعة النبي قال هذه هبكي فصيحة القرآن وأخرج للنبي يقول له أخريه ويا القرآن رغم ماذا الله إسكا إلى عليه يجتبنتيس أخرنتيس واجب إن شاء الله أخريه ونكس مركب ويعلمهم الكتاب وتفسير كيسية معناه أساسا القرآن كل الرؤية مركب إرياض نبرته معنيه سنة أدراعيسه labadaas ilaahay ugu manna sheegtay akhrintii qura ma laakiin waa akhrintii iyo macnaheed xigmadu imaam shaafici rahimahullah sidoo ku fasirayo waa ahadiithta nabiga nabiguna wuxuu wardadiyo ilaahay wuxuu isiiyay quraanka in la eego waxyana uu isiiyo xadiidka ah marka ha oranina nabiga waxa laga qaadanaya waa quraanka oo qura xadiidka suganina oo laga qaadanaya rasuulkooda waa diinta qayb kamid ah marka iyadoo la sheegay akhrintii quraanka oo la sheegay sidii inuu nabigu barayo macnaheed ayaa ilaahay wuxuu raaciyay wayuzakiim tazkiyadan maxay tahay culamaa tarbiya waa meel ay daliishadaan waxa ay leeyihiin waa tarbiya waa shay ka dheeraada akhrintii iyo macnaha barashadiisii oo ah wuxuu ka saxayay oo uu ku carbinayay sida loogu camal falayo ee loo fahmayo marka waa tilaawatun وفهم معنى القرآن والعمل به وعمل فالكي بك ترجميسا ويزكيهم وتربيين يساس أورسي نبي سادردت بقرني أورسي ونقضي قرنية دورن كوجو فضل بدن إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاري وعربية دعاء سيبا إلى هوا أقبل النبي إبراهيم أين أركينا ومضى إسلام كأه أصحابته هرمود أيوهين إنه لهوا أقبل haddaba halkan waxa ilaahay uu ku xusaya dadkii uu kala reebaya nabi ibraahim oo abtirsanayo nabi ibraahim yaa ku abtirsan kara ka diintiisa raacay ka diintiisa diidayna tawaasida yahuudiya kristanka iyagana halka iska dhig waman yarqabu an millati ibraahim illa man safiha nafsuhu yaa nacaya diintii nabi ibraahim illa qof naftiisi safiih ka dhigay mooyaane safiihu waxa weeye qofka magaratada ama aqliga liitaway ee ay tahay in la hago la hogaamiyo marka qofku inuu naftiisii de kor u qaado oo qof caaqil ah oo qiimala uu ka dhigo iyo inuu safiih ka dhigo labada waxa kala saaraya diin iyo diin la'aan haduu qofku diin islaamiga iyo iimaan leeyahay waa qof lagu talagali karo akhyaara hadii kalena waa qof liito safiih oo wax macnaha uu leeyahay qofku hadaan diin lahayn wax macnaha uu leeyahay ma jiro saadarteed baa ilaahay safiih ku xukumay walaqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil aakhirati lamina saalihiin adduunyadana waan doortay nabi ibraahim aakhirana saalihiintu kamid yahay macnaheedu ya ilaahay baa doortay adduun iyo aakhiraba nabi ibraahim waxyaabaha lagu doortay hadii lagu sheegayna waxa weeye
isagoo ilaahay ka dambeeyey addoonnimada xaqiijiyey ilaahay isu dhuldhigay amarkiisa qaatay diintiisii hirgeliyay oo ku dagaalamay liwaxdu isagoo keligiiya ayaa uu jihaadka xaqiijiyo oo sanamyaasha ka jajabinayay kuwii mushrikiinta ahaa id qaala lahu rabbuhu aslim baa ilahaw aslim isdhiib oo hoggaansan ila islaamnimada waxay sheegaysaa qalban wa qawlan wa camalan qalbiga iyo qowlka iyo camalka intaba inuu qofku ilaahay isu dhiibo qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin geeridayda iyo noloshayda iyo camalkayga iyo salaadayda intoo dhanba ilaahay baa leh addoon ilaahay baan ahay camalkaygana ilaahay baa leh markaasuu ka jawaaba wuxuu hi aslamtu lirabbi alcaalamiin saas wey waxaa aayadda aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku inuu gurmad fidiyo waajib bay ku tahay marka u horeeya naftiisa u fidinaya si aynu qisada ka arkayno marka labaad cidda ka agdhow ee ugu lexa jeclo badan yahay ubadkiisa ah ayuu u fidinayaa marka ku xigta ummadda ka agdhow saasuu u wadaya marka mar walba nebi ibraahim iyo ambiyada uu sii dhalay waxaad arkaysaa qur-aanku inuu ka warinayo oo taariikhdooda ku xusayo inay gurmad u fidinayeen dadka ka agdhow iyo ubadkooda wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub biha damiirkaasi wuxuu noqonayaa islaamnimada diinta milada ay ku noolaayeen ee ambiyadaasi ku dhinteen ayay dhaxal uga tegayeen ee u dardaarmayeen siduu nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ummadda caam ahaan iyo khaas ahaanba waxa uu lahaa war waxaan idinkaga tegay dhexdiinna shay haddaa cuskataan aydaan ambanaynin kitaab allah ilaahay kitaabkiisa war ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegay markuu sii dhimanayay ilaahay kitaabkiisa haddaa qabsataan oo irkataan amban maysaan buu lahaa waaya marka labadoodaba dardaarankani wuu yaallaa mid waliba wuxuu hi yaa baniya ina allaha astafaa lakum ddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun inamadaydiiyo ilaahay diin buu idiin doortay diin macnaha qofka ilaahay uu diin siiye wuu doortay qofku ilaahay diin siiyey waa doortay qofka diin la-aan ku dhacayna doorashada allo ka baxay weligiiba cid kastaa hadday codka ugu badan siiso adduunyadoo dhammi hadday doorato qofkan oo ilaahay xaggiisa aanu cod ku lahayn maya soo bixi maayo wuu libdhay balaak liisku ku jiraa liiska madow ay gaaladu idhaahdaan liiska madow baanu cid ku qornay ka bilaadiin ku dhacay baa liiskii madoobaa ku qornaa asfala saafiliin in allaha astafaa lakum ddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo islaama mooyaane macnaheed waxa weeye islaamnimada xejista oo dhib kastoo idinka soo gaadha ku adkaysta caduu calayha binnawaajid siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam gowsaha dambe dhigta geeriduna ha idiin timaado idinka oo islaamnimo ku sugan macnaha ku faana diintiinna oo ku noolaado oo ku dhinta saasuu mid waliba u dardaarmayay nimadiis macnaha idinka xaggiina wax gaboodfalihiyuu ka iman doodii baa ilaahay uu soo celiyey nimankan yuhuudda uu u furayay si xujadaasi ay ugu fashilmaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddana ilaahay uu laqimaya dabeed alla wuxuu yidhi am kuntum ma waxa ahaydeen yuhuuday shuhadaa ma goobjoog ba ahaydeen id xadara yacquub kolkii uu yacquub ku soo xaadiray almowtu geeridu astaamihii geerida iyo calaamaadkii iyo muqadamaadkii waxyaabihii ka horreynayay markay ku soo xaadiray malagu sakaraadkii lagu dhuftay miyaa goobjoog ba ahaydeen id qaala libanii inamadiisiioo ag joogay buu ku yidhi yacquub isagoo imtixaan ka qaadaya maa tacbuduuna maxay idin caabudi doontaan min bacdii aniga dabaday aniga waa ikanoo waan sii socdaa maxay idin caabudi qaaluu waxay idhaahdeen ilmo yacquub nacbudu ilaahaka ilaahagaanu caabudi doonaa wa ilaaha aabaa'ik aabbayaashaa ilaahoodaanu caabudi doonaa aabbayaashaasi waa kuwe ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq saddexdaasoo aabbayaashaaya waa laba awow iyo aabbe ayaanu caabudi doonaa ilaahoodii ma kala ilaahbaa ilaahan waaxidan waa ilaah keliyahuun ayaanu caabudaynaa wa naxnu annagu lahu muslimuun isaga keligii baanu hoggaansanay
ilaahay wuxuu yidhi tilka taasi ummatun qad khalat waa ummad socotay oo tegay oo iska allaystay lahaa maa kasabat waxay leeyihiin wixii ay shaqaysteen khayr iyo shar walakum maa kasabtum idinkuna waxaad leedihiin dadkiinna noole wixii aad shaqaysateena camal ah walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen ilaahay idin weydiin maayo laydiin qabsan maayo iyagana waxaad samaynaysaan loo qabsan maayo mid walba gaarkiisu ilaahay u xisaabinaya sidaasaa ilaahay u xujeeyey nimankii mushrikiintii carbeed iyo kiristankii iyo nasaaradii waa nimankana waxay isu dhigeen inay wax ka sheegaan ambiyada ah oo waxyaabo beenahay soo malluuqeen ayay ka sheegi jireen sidaa darteed baa ilaahay uu halkan fashiliyey yacquub baa sidan yidhi oo yacquub baa sidan waxaan kitaabna qorin sanadna lahayn iyo meel adagoo lagu tiirinayo alla wuxuu ku xujeeyey yacquub markii uu sii dhimanayay inamadiisii diinta iyo islaamnimadaas u dardaarmo uu kaga tegaye goortaa goobjoog miyaa ahaydeen ilaa cidda looga qaateenkahay waa ciddii goobjoog ahayd weeye idinku wakhtigaa miyaa joogteen ilaahay subxaanahu wa tacaala asalka ahaa ee mar walba joogay ayaa ka soo wariyey yacquub maqaaladan qaaliga ah yacquub saasuu islaamnimo ugu dardaarmay ubadkiisi idinkuna ubadkiisii baa kasii farcanta waxba ha ka sheegina saynu aayaadka dambe ku arki doonno ma idinkaa og baa ilaahay u odhan doonaa mise ilaahay ilaahay baa og subxaana qul a antum aclamu am illaah arrinku saasuu u dhacaye idinka iyo ilaahay keebaa la odhan karaa wuu ogaa wakhtigaa ilaahay baa ogaa waa yacquub oo sii dhimanayo geeridu ay ku soo xaadirtay marka almowt geeridu dee waa haddii naftu ay ka baxdo hadalkani kama yimaadeenba saa darteed baynu u xusnay muqadamaatulmowt waxyaabaha mowtka ka soo horeeya sakaraadkii nin weyni wadkii waa yaqaanaa tilmaamaya inuu hebel dhimanayo markii tumaatidaasi ay ku dhacday ayuu inamadiisii diinbuu u dardaarmay sidaa ibraahim iyo yacquub mar kalea ilaahay uu ku soo celiyay subxaana sababta yacquub ilaahay ugu soo celinayaa waxa weeye dee iyagiibaa ka farcan israa'iil baa yacquuba nimankan muranka badan nabiga calayhi salaatu wasalaam la galayna dee ilmo yacquub ahaan waa reer banu israa'iil marka labadoodu wada jir bay diin ugu dardaarmeen markay ifka ka tegayeen gaar ahaan yacquubna maqaaladiisii sidanay ahayd iyadoo faahfaahsan halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofku waxa u muhiimsan ee marxaladahan oo kale oo ummadda kala hadlaya waa inay noqoto masaalixdooda diineed iyo ta'aakhiro waa inuu isku dayaa qofkani quluubtooda inuu soo jeediyo inay cashar ka kasbadaan geeridiisa saasay ahaayeen salafku iyo dadkii saalixiinta ah waa wanaagsanaa iskumay hawli jirin xoolaha ay ka tegayaan iyo waxaa yaryarka ah ee dhaxalka ah waxaa in fara badan ka warramayeen aakhiro iyo xusuusteeda ayay ka warrami jireen iyadoo aanay xumayn qofku dee inuu dardaarmo oo adduunyada wixii dayn lagu leeyahay iyo wixii tabarucu bixinaya iyo wixii cid ka dhaxeeya iyo inuu dardaarmo ay tahay haddana dardaarankan caqiidada ayaa ah kii lafdhabarta ahaa ee kamakacdada ahaa inuu qof ubadkii uga tago oo idhaahdo dee waydinka ah sidii ay ugu soo xaadireen camru bnulcaas saxaabigii jaliilka ahaa ee la odhan jiraybaa markuu sii dhimanayay ayaa inamadiisiibaa u yimid oo waxay idhahdeen aabbo in badan baad odhan jirtay allow geerida ayaa noo sifeeya oo aad odhan jirtay haddii qof noo sifayn lahaa geerida oo isagoo miyir qaba uu nooga warrami lahaa sakaraadka ayaan jeclaan lahaa waxaa noo muuqata inaad sakaraadaysee bal ka war waa kii lahaa kaana jibaala radwa calaa cunuqi wa kaana ashawka fii batni wa kaana nafsii tukhraju min ibra waxaa la moodaa buuraha waaweyn ee silsilada isku xidhana radwo la idhaahdaa inay qoorta iga saaran yihin waxaa la moodaa qodaxda kediga in calooshayda lagu xurbinayo waxaa la moodaa naftayda in irbad daloolkeed laga saarayo cidhiidhiga ay haysta marka adigu almuhim saasaa maaragtay wanaagsan oo qofku inuu idhaahdo war waa arkaysaane dee waddadaasaan maro idinkula haysaane dee ha halmaamina dariiqa xaqa ha seegina marka imtixaanku ka qaaday waxa uu qaala id xadara yacquub almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi maxay idin caabudi anigu markaan dhinto waa socdaaye
maqaaladay ku jawaabeen qaalinimadeeda ilmo yacquub nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ilaahaaga iyo kii aabbayaasha baanu caabudayna ilaahay adiga ilaaha ku ah aabbayaasha ilaaha u ah ilaah keliya ah umma cid walba u ilaaha ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq aabbayaashu waa ku ah marka si eraygu aanu ugu muuqanin qoladaa ilaahoodii iyo adiga ilaahaagii oo aan meeshu aan sawirka aanu muuqan ilaahyaal kala duwan inay jiraan way soo afjareenoo ilaahan waaxidan waa isku ilaah keliya wood adiga ilaahaaga aabbayaasha ilaahooda annaga ilaahayaga waa allah alaxad samad alfard ilaahan waaxidan wanaxnu lahu muslimuun saasay ku faanayeen saasay ugu bushaareeyeen saasay ku noolaayeen dadkaa saalixiinta ahay wanaxnu lahu muslimuun falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun erayga islaamnimaa soo noqnoqonaya alislaam walmuslimuun way nimankanaa diidanaa u abtirsanaya nebi ibraahim iyo yacquub ayaa islaamnimo diidanaa wala annagu dee waa innaga xagga dambe ku arki doonnee wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu iyagaa waxay dhahaan islaam ha noqoninee yuhuud iyo nasaaro noqda ahanuunteene ilaahayna wuxuu leeyahy yuhuudinimo iyo nasraaninimo ciddii idin dhashay ee ku abtirsanaysaan ee ambiyada ahaa umay dardaarmin islaamnimay u dardaarmeen ka islaamnimadii haystaa ku abtirsanaya iyaga xariggaa ilaaha uu jaraya wanaxnu lahu muslimuun sidaasaa laga doonayaa ummadda islaamku inay islaamnimadooda ku faanaan halka laga yaabo inay dad badani ka xishoonayaan islaamnimadooda iyo digitooda iyo qaarkoodna magacooda markii la dabagalay dadkan dibadaha marmara iyagaa marka horeba qaar aanay isku qolahayn waxu doontee in yar arsaaqada u doontee ee cabdilaahi iyo cabdiraxmaan iyo lagu xidhay ayay yidhahdeen warfaa jiilaal xagaa magacaasaa noo wanaagsanaan lahaaba iminka magacyaashii odayaashii hore gaboobay ee magac soomaaliga ahaa ayaa dad badan suuqba u ah oo magacyadoodii ay u bedesheen laakiin waxaa la doonaya qofku islaamnimadiisa iyo diintiisa dee inuu ku faano oo ilahay baa waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan ninka islaamnimadiisa ee ku ictisaasaya ee ku faanaya ee faafinaya ee kor u qaadaya wanaxnu lahu muslimuun tilka ummatun qad khalat waa uma tagtay taas aabbayaashiin nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq waa uma tagtay marka waxa aayaddu ay muujinaysaa sida aabbaha loogu magacaabo aabbo awowyaashana aabbaa la ydhaa aabaa'ik wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq macnaha iyaga laftigoodii dee waa aabbayaaluun awowgii waa aabba uun saa darteed baa awow halkuu ka odhan laha hadduu aabba yidhaahdo mushkilad ma leh waa masalo dhaxalkana had iyo jeer xidhiidh si ula laho culimmada qaarkood ay soo qaataan oo ay leeyihiin awowgu aabbuhu la mid yahay si aayadaniba ay sheegtay xagga dhaxalka baabkaa markay ka daliishanayaan ummaddaasi waxay leedahay wixii ay kasbadeen idinkuna waxaa kasbateen walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen laydin weydiin maayo hadduu gaf ka dhacay laydinma qabto idinka haddii gaf idinka dhacayna iyaga looma qabto aayaddu waxay caddaysay shayga la ydhaahdo aanada inaanay ilaahay agtiisa oolin iyo islaamka toona walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa man camila saalixan falinafsi waman asaa'a fa calayha qof waliba dhib iyo dheef wuxuu geystay isagaa leh aanadu aadamaha liita ee cadaalad darrada ku soconaya shaqadooda weeye iyo shuqulka jaahiliyada weeye halkaasibaa markaa waxa ilaahay uu xusayaa qofka liitaa cid wanaagsan oo dhashay oo uu ku abtirsanayo inaanu ku nabadgelayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aayad ku soo dejiya uu leeyahy waandir cashiirataka alaqrabiin dadka qaraabadaada aad ku xiga wuu u digayo kor buu ugu yeedho hoos buu u yeedho jilibadiisaro quraysho kuwii ka hooseeyo markii u dambaysay aalu beydkiisii buu u yeedhay inantiisii faadima wuxuu leeyahy faadima intaynu ifka joogna adduunyada waxaa doonaysa ee weydiisa waan ku siine aakhira hadduu ilaahay ku qabsada ku maarayn maayo anigoo nebi maxameda marka ilaahay xaggiisa ka dhisnow oo arrinka iska giiji oo diin iyo iimaan ayaynu isku raaci karnaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu leeyahy waman abda'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa qofka camalkiisu uu dib rido abtirsiimadiisu ma qadimaysa ogaada qur-aanku wuxuu ka warramay nebi nuux
oo inankiisii uu halaagii ku tegay islaantiisiina ay badda raacday iyo biyaha oo midna badbaadi laaya tusaale quraanku ku bixiyay fi aakhir suurati at-tahrim saad ka akhri karayso waxa kale inuu ka faa'iideysanaynaa qofku dee haddii ubadkiisu uu xumaado isagu wanaagsan inaan loo qabsanayn lama qabsanayo qof walba sidiisa ilaahay u xisaabinaya sa aayadu ay cadaysay waxa kale inuu ka fahmaynaa qofku hadduu tegay isaga iyo ilaahay baa sarkayna waxba laga sheegin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxba ha u kala tirinina kuwa dhintay fa innahum afdaw ila ma qaddamu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam dadka dhintay iskaga hadha faaladoodii caydoodii wax ka sheegooda waayo qof waliba wuxuu la kulmay wixii oo hore u shaqaystay camalaha waaye waqaaluu waxay idhaahdeen nimankii gaaleed ahlul kitaabka la odhanayay iyagoo dadka warbaahintooda kala hadlaya waxay idhaahdeen kuunuu waxa ahaataan huudan yuhuud noqda bay idhaah aw nasaara ama kiristan noqda kuwa nasaarada la ydhaa tahtaduu waydin hanuuni doontaan bay dadka ku yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal labadaa midna noqon mayna allah naga nabadgeliye millata ibraahiima natabicu waxaanu raaci doonaa millata ibraahiim nebi ibraahim diintiisii baanu raaci islaamnimada ahayd waana diintii nebi maxamed xaniifan isagoo xaqa u soo leexanayay nebi ibraahim xaniifan xumaantu ka soo leexanayay yahuudiyanimada iyo nasraannimada wuxuu u leexanayay xagga islaamka wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim gaalada kamuu mid ahayn ummaddan ilaahay wuu tilmaamay oo wuxuu ihi quuluu waxaad tidhaahdaan dadka muslimiinta haddaad tihiin aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila ilaynaa waxyiga nalagu soo dejiyey ee qur-aanka baanu rumaynay kitaabka yagan wamaa unzila kutubtii lagu soo dejiyeyna waanu rumaysanoo ma diidanin ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaat intaasoo nebi waa ibraahiim iyo nebi ismaaciil oo inankiisiiya iyo isxaaq oo inankii labaad isaguna nebi ibraahiima yacquub oo isaguna ina isxaaqa waalasbaat waa inamadii yacquub uu dhalee 12 ahaa intaaba kutubtii lagu soo dejiyey ma diidayna waa rumaysanay wamaa uutiya muusa wa ciisa wamaa kutubtiina waanu rumaysanay uutiya la siiyey ilaahay uu ku soo dejiyey muusa wa ciisa nebi muuse iyo nebi ciise wamaa kutubtiina waanu rumaysannahay uutiya la siiyey annabiyuuna ambiyadii ilaahay min rabbihim ilaahooda xaggiisa laga siiyey walaa nufariqu kala saari mayno waxaa ummad yahay tidhaahdaan ilaahay baa inoo laqimaye walaa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum walaa nufariqu cafwan laa nufariqu wow baanay lahayn laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum cid ka mida ambiyada ah oo kana rumayn mayno kana diidi mayno waa wada rumaynaynaa wa naxnu annagu lahu muslimuun ilaahaasaanu keligii u rumaysannahay sidaa dhaha sidaasaa ilaahay ummaddan uu tilmaamay ilaahay baa ka warinaya subxaana hadalladaa xunxune ummaddaasi ay yidhaahdeen iyo waxyaabaha ay dadka ku waaniyaan iyo waxyaabaha ay baahiyaan iyo waxyaabaha ay dadka ku soo jiitaan intay dadkii la hadleen ciddii ay isku wakhtiga ahaayeen iyo ciddii ay gaari karayeen baa waxay idhaahdeen waar yuhuud noqda nasaaro noqda hanuunteene dad yow haddaa hanuunka doonaysaan yuhuud iyo nasaaro noqda haddaa horumarka doonaysaan iyo inaad noqonaysaan dadka adduunyada koobaad dee diintayada qaata bay idhaah macnuhuna maaha inay maqaaladan isku waafaqsan yihiin labada qolo taayaadkii hore aynu ku soo maraynay qolada kale inay eedaysay waqaalat ilyahuudu laysat الnasaara calaa shay waqaalat الnasaara laysat ilyahuudu calaa shay qolada kale ay tidhi kuwaasi waa bilaadiin waxba kama jiraan waxooda marka qolo waliba gaarkooday u tidhi badeecadda ibliiskee liidata iyo diin la-aanta bay qolo waliba hanuun ku sheegtay tahtaduu bay idhaah saas wey marka diinlaawuhu hallowgu hanuun u yaqaanaa hanuunkana hallowbuu u yaqaanaa hallowgu horumar u yaqaanaa horumarkana dibdhac buu u yaqaanaa sidaa darteed baynu bilowga suuradda ku soo marnay marka la idhaa waa dhulka ha fasahaadinina maxay odhan jireen innamaa naxnu muslixuun
waar waxbaanu hagaajinayna caalamka waa adiga arkayo yuhuud iyo nasaara waxa dab ka baxaya shidaya waxa la waxa fitna ka soconaya ee muslimiinta dhexdooda deesay isugu direen iyo sida ay u laayeen iska daay xataa gaalada dhexdooda waxa dhibaato ka jirta iyaga aloosaya waxa xaqiiqo jirta weey waliba yuhuudda asal ah kuwa nasaarada laftigoodu iyaga dusha ku sita oo xambaarsan oo ay la ildareen lidalik ba istaraatiijiyadahooda ay kamid tahay falaasifadooda mid kamid ah waxa uu lahaa oo maaragtay professoradii jaamacadaha ingiriiska wax ka dhigayay ummadda si loo xukumi karo waa in cadow loo sameeyaa buun oo caalamka kolba fitan qayb kamida laga abuuraa haddii cadowga laga waayo buun dhulka dushiisa waa in dayax gacmeedka looga raadiyaa buun dayax gacmeedka dad isku haysta ama dad kaga soo duulaya waa in loo sheegaa oo la yidhaa kuwaasaanu idinka haynaa macnaa si aad madax ugu noqon karto si aanay kuugu soo jeesan si ay codka kuu siiyaan ma ashbaha leyla bilbaarixa maqaalada ninkaasi uu lahaa falaasifadoodu ka mid ahaa waa taa ay maanta ka duulayaan bal doorashaa la galayaa kumayaal kilomitir meel inoo jirta ayaa doorasho laga galayaa dagaalka ciraaq ka socda iyo muslimiinta dhexdoodana way ku galayaan oo kan cod lagu siinaya oo kan laga gadaynaya waa arrin aad iyo aad u cajiiba marka tahtaduu diin la'aantaasay u haystaan inuu runtii yahay wax xanuuna oo maaragtay iyagu say u arkayaan baa saasa dadkana ku ambinaya ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan waxa uu farayaa inay noqdaan dad istiqlaaliyad leh oo ilaahay waxa uu laqimaya qaadanaya oo ku kalsoon oo ambiyadooda ku tiirsan oo awliya ilaahaya qul bal millata ibraahiima xaniifa maya waxaanu raacaynaa diintii nebi ibraahim nakhtaar ونتبع ونعمل ملة إبراهيم حنيفا دين النبي إبراهيم ندى النبي محمد باشيغا وحاول دين النبي إبراهيم با إلهي يقول صادري سيانو قصار قلق الله عيدتكو قليه وأنو توسيه وما كان من المشركين نبي إبراهيم مشركين تموهين قال هذا يهود ومشركين وعزير بيد هذا وين إلهي كريستان كانوا مشركين oo waxa ilaahay la caabudaan ciise mushrikiintan kalena qoriyay dhagaxaan baabay dul fadhiyaan hadalkan oo kale waxa la yiraahdaa tacriid sarbeeb way hadii midalan qof aad la hadlaysa aad tiraahdo de war anigu caynka ma yihin qof baa sheekaysanaysaana waxaad ku celcelinaysaa de war anigu beeraale ma yihin anigu de tuug ma yihin hebelow waxa halka laga fahmayaa waxa aan iska anfiyada ah marka macnaheedu waxa weeye inkastoo de aanu kugula garami karino hadal cad aanu ahayn وما كان من المشركين نبي قال المشركين تكموا مدهين حنيف بوها موحدة إذن كان مشركين مركن المشركين الموحدة سدوا قابتر سنكرا ومضى الإسلام كإيمان كوناكسنا مير كقبائل هاي أقبل يو الله قما يو وحر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية وحتى هذان وعن الرمين إلهي وعن الرمين إلهي إيوه كتبتيس إيوه رسوشيس ملك على سارين الرسوش هي كتبت آمنا بالله إلهي بان رميسن هذا يقول هذا إلهي أنا بوان رميسن هل كان دبي كل عيان أنت دبي كل عيان أنبياء هل كان إلهي يقول الرماية إذن كنت يوم مسلمين تاعي وأنبياء يقول هذا أنا قال رميسن نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق نبي يعقوب أسباطنا وإنما ذي يعقوب نبي طبعا كها نبي يوسف كمدها نبي موسى نبي عيسى انت يا وحي كتب لسيارن لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أنه كلا صار مينه وانو ولا رمين إلهي يا ملائكتيس يا كتبتيس يا رسوشيس وأركانتي إيمان كوي هل كاسا أين كوكلا هرينا إنجا إيو يددك آن مسلمين تعين وكان إلهي حسن ألا وحول فإن آمنوا هتي رميان بمثل ما آمنتم به بمثل إيمانكم إيمانكين أوكلا فقد اهتدوا هنونين وإن تولوا هدي أي سيتشيت سدان فإنما هم يجوا في شقاق خلاف بيكسجيهن شقاق بين خلاف سين فسيكفيكهم الله إلهي بكاغا في اللان وهو السميع العليم كي وحول بمقليا وحول بأكسوي صبغة الله قولوا نتبع صبغة الله إلهي الدين تيسان راعينا لها
sibqat allah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha oo mabda'a u cadaysta waman axsanu yaa ka wanaagsan cidina kama wanaagsanee min allah ilaahay sibqatan xagga diinahaan ilaahay cidina kama diin wanaagsana diinta islaamnimadu dadka u xulay wanaxnu annagu lahu ilaahay caabiduun kuwa addoommo u abaannahay oo isu dhiibay sidaa dhaha ayaa ilahay wuli subxaana iimaanka ilaahay uu raalliga ka yahay islaamnimada uu raalliga ka yahay waa taa nebi maxamed iyo asxaabtu ay haystaan taasaa lagu qiyaasaya waaya ilaahay taasuu taskiyeeyey taasuu hambaliyeeyey markaa iyagu idinma qiyaasayaan arrimaha maqaayiista iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyaga lagama eeganayo idinkaa la ydinka eeganaya jaangooyadii iimaanka wanaagsan ee alla tixgelinaya ilaahay agtiisa qiimaha ka leh waa iimaanka nebi maxamed iyo asxaabtiisu lahaayeen marka waxaa ku tidhaahdaan war iimaankaa wanaagsan baa ilaahay uuna faraye haddii aad kaa rumaysaan waa hanuunteen hanuunku yuhuudnimo iyo nasraannimo iyo kuma jiro maalan yuhuudda haddii iminka la weydiiyey ambiyada ilaahay waxa uu ka qabo dee wuxuu leeyahay anugu muuse waa rumaysta kan kale nasaaradu ciise waa rumaysta inkastoo dee ay u rumaysan yihiin inuu ilaahay ama ilaahnimada qayb leeyahy nebi maxamed ka waran ka ugu sahlan baa odhanaya waan ixtiraamaya haddii mid muslimoo mid soomaaliya oo madow lagu idhaahdo la yar nuuneeyo dee nebi maxamed un weydii war nebi maxamed ma rumaysanta haddii aanu markaa rumaysnaynoo dee fikraddan uu qaba wuxuu leeyahay waan ixtiraamaya nebiyada waan ixtiraamaya baan halkaasu ka bilaabaya waan rumaysanahay afkiisa laga maqli maayo haddaanu dee munaafiqadaynin may anigu dee nebiyada waan ixtiraamaya buu maxamed waan ixtiraamaya maxamed waan ixtiraamaya wuxuu kaga cararaya waan rumaysnahay dadka mu'miniinta ahay sidaasay u wada rumaysayn ambiyada ilaahay iyo kutubtiisa dhammaan laakiin dadka diimaha kale haystaa kutubtana qaar ka mida bay yidhaahdaan waa rumaysannahay ambiyadana qaar ka mida bay yidhaahdaan waa rumaysannahay waa iimaan dhantaalan oon ilaahay aqbalayn iimaanka dhammayska tirani waa kan ilaahayna wuu ku ammaanay nebi maxamed iyo asxaabtiisii aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billaahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih waqaaluu samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbana wailayka almasiir saasaa ilahay uu ku ammaanay halkanna saasuu ku xusay faqad ihtadow waxaa halkaa laga fahmayaa diintan siday asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u fahmeen inaynu inaguna u fahmno waxay asxaabtu sawaabo arkeen iyo diin ayaynu arkaynaa waxay asxaabtu ka baydheen ee nebi maxamed ka dayriyey waa laga baydhaya waaladiina tabacuuhum biixsaan buu qur-aanku ammaanay samafalka kuwa ku raacay asxaabtii nebiga waa wasadiyada iyo dhexdhexaadnimada ilaahay uu ku ammaanaya ummaddan aayaadka soo socda wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad dhexdhexaada wey xagga caqiidada dhexdhexaad baynu ka nahayoo dadka qaarkood ummadaha caalamka ku nool waxay dafireen macbuudba waxay idhaahdeen ilaah la caabudaaba ma jiro ilaahayba ma jiraba subxaan allah qayb ka midihina cidaan ilaahnimo xaq u yeelanin ayay kula dulkufeen oo adiga arkayo dee makhluuq qayb ka mida bay caabudeen sidaa nebi ciise oo kale iyo maryami qayb ka midana way ka sii dareena wax alla wixii ka soo horbaxaba waxay u kanaaba ilaaha bay yidhaah ilaahii horey tuurayaan dabeedna sanad walba ilaah cusub buu leeyahy iminka hindiya caalamkaa dee qayb dhanoo caalam ka mida wey ilaahyadooda sanadkiiba mar baa la qoraa oo lasoo in fara badan oo ka mid ah baddaa lagu daadinayaa sanadka dambe qayb kalea lasoo qoraya caanaa lagu soo maydhayaa sanamyaashaa saasaa lagu caabudaya haddana waa la rawxinaya haddana saasaa lagu wadaya subxaan allah kuwaasina wixii ka soo horbaxaba ilaah bay ku sheegeen kuwanina wax ilaahoo jiraa ma jira bay yidhahdeen mulxidiinta ahaa ummaddani ilaahnimo ilaahay inuu jiro allah oo ka xaqa aha isagu cibaado xaq u yeeshay inuu yahay ayay qireen ummaddani saa darteed waa ummatan wasatan iimaankaa jaangooyada leh qiimaha badan weyn wain tawallow fa inamaa hum fii shiqaaqin fasayakfiikahum ullah haddii ay sii jeedsadaan khilaaf bay ku sugayiin khilaaf shiqaaq waa khilaaf sibqat allah marka xagga horey raacsan tahayoo
bal millata ibraahiima baynu soo marnay waxaad tidhaahdaan yuhuudna noqon mayno nasaarana noqon mayno millata ibraahim baanu raacaynaa sibqat allah ilaahay diintiisii baanu raacaynaa waman axsanu min allahi sibqa ilaahay yaa ka wanaagsan diin ahaan ilaahay waxa uu leeyahy waradiitu lakum alislaama diinan waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu alislaam ayaa ilaahay ummaddan uga raali noqday marka diinta ugu wanaagsan ilaahay baa dadkan u dooray wanaxnu lahu caabiduun sidaa dhaha waxa isweydiin leh maxaa diin allaahi loo odhan waayey diin allaahi waman axsanu min allaahi diinan ee sibqa nasku u doortay laba arrimood bay culimmadu xuseen aayaddu waxay xidhiidh la leedahay sababu nusuulka waataynu hore usoo xusnay sababu nusuulka oo la fahmo wuxuu kaa saacidaa macnaha qur-aanka fahamkiisa nimankan aayaadku ay deedifaynayaan siiba nasaarada ayaa waxay caado u lahaayeen ilmuhu markuu dhasho 7 cisho jiro ayaa la soo qaadayaa biyo sibaaq leh ayaa daf la siinaya kolka biyaha la geliyo boobku uu hayo ilmaha yar ee laga soo saaro ayaa la odhanayaa imikuu kristan hagaagsan yahay intii hore maynaan hubina kol haddaynu biyaha juq siinay imika biyo la geliyay miskiinka yar imikuu kristan hagaagsan yahay kol haddaynu sibaaqaynay waa kuwan hinduuska laftoodu dee waa kuwan sibaaqa halkan aad ku arkayso hindidan dee mushrikiinta ah waa kuwan sibaaqa saa isu mariya qaarkoodna farta arrin aad u khatara wey kolkaasay dabeetana sibaaqaasay wadan jireen halkaasaa ilaahay uu soo dejiya aayaadkanoo kaasi ma aha diin iyo sibaaq qofka qabanaya sibaaqa qofka qabanaya iyo midabka aan muuqaalkiisa iyo macnawiyaadkiisa ka fuqayn waa diinta weeye kan aroorta marka saabuun lagu maydho ka maydhmaya laakiin iimaanka iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka diintani leedahay qofka way ka muuqanayaan macnawiyaadkiisa iyo muuqaalkiisa labadaba ummadda way ka muuqanayaan oo ummadaho dhan way kaga duwantay sidaa darteed iyada oo diintu ah mid dadka bedesha sida rinjigaa gidaarka la marinaya uu u bedelo daraaddeed baa ilaahay sibqa ugu sheegay diintu hadday dadka bedeli weydo oo dhaqankoodii waxba ay ka sixi weydo oo iyaga iyo jaahiliyaddu isku muuqaal egaadaan oo isku mawaaqif egaadaan dee sibqatallaahi ma haystaan gidaarkan iminka hadduu marka la rinjeeyey markii uu rafka ahaa talbiista waasoo ma kala duwanaa wuu kala muuqaal rooyi marka ummadda mawaaqifteeda iyo dhaqankeeda iyo muuqaalkeeda intuba waa inay sibqatallaahi yeeshaan ummadda islaamku lahaa sibqa khaasa waxay leedahay muuqaal gaara mumayisaad gaara waxyaabo ay kaga duwantahay ummadaha kalaa jira saa darteed baa ilaahay ugu tilmaamay diintiisa sibqa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow atuxaajuunanaa fillaah ma ilaahay baa nagula doodaysaa wa huwa rabbunaa wa rabbukum annagi iyo idinkaba isagaa rabbi inoo wada ah walanaa acmaalunaa annagu camalkayagaanu leenahay walakum acmaalukum idinkuna camalladiinnaan leedihiin dadkiinna gaalada ahaw wa naxnu annagu lahu mukhlisuun annagu ilaahay daacad baanu nahay oo waan u saafi yeelaynaa cibaadada am taquuluuna ma waxaa odhanaysaan yuhuudi iyo nasaaradii baa ilaahay u deerifaynaya inna ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaad intaasoo dhammi nebi ibraahim iyo isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub nebi ibraahim iyo inamadiisan oo dhan macnaha isagunbay ka farcayn ismaaciil isxaaq yacquub iyo asbaad intaasi ma waxaa leedihin kaanuu waxay ahaayeen huudan aw nasaara yuhuud bay ahaayeen ama kristan ma sidaasaa la shir imanaysa oo dadka u sheegaysaan buu ilaahay yidhi bal dooduu ilaahay u fura eeg qul waxaad tidhaa nebi maxamedow la doodo a antum aclamu ma idinkaa ogi badan am illaah mise ilaahay allahu aclam ilaahay baa garanaya waman adlamu yaa ka gardarro badan buu ilaahay yidhi minman cidda katama qariyey shahaadatan markhaati cindahu agtiisa ahaaday markhaati uu og yahay min allaahi ilaahay xaggiisa ka yimi markhaati ilaahay uu ogeysiiyey qofka qariyey yaa ka dulmi badan cidina wamallaahu ilaahay muu ahaanin biqaafilin mid ka warla camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaa ilaahay wuu og yahay waxaa laga cilaaya waxaa samaynaysaan kol hadduu ilaahay xogaalu yihi tilka ummatun qad khalat ambiyadaa tagtay waa ummad tagtay lahaa maa kasabat wixii ay ummadaasi shaqaysatay bay leedahay walakum maa kasabtum idinkuna waxa aad shaqaysateen baa leedihi
ولا تسألون عما كانوا يعملون وحي سمينيين ليدين ويدين مايو عيد والبا إلهي عمل كيدو كو أبالينيا وضودوي إريقا قل أصان نقنقنيا وأسلوب التلقين إلهي بقول لقيمة سبحانه نبي محمد أصحاب تيسا ومدى إسلامك قفك مسلم كامر كي ضودي الدليل نقطه دين لحريرا عيدي كما قولي سنيس هدو دي أقول لي هايوي هدو جاهليون الدين تيسا وحبك قراني دنبا والله عبيه ووحي الله دونا لقد رقين كرائي هدو وحون قراني أهل المها عقيدة وحكا قراني دوا كان إلهي أولا قيمي سداده أو سداده أو سداده دركميس كدود الله يسوي ما دو كي وليبو اسكا عمس أتحاجوننا في الله ورما إلهي بين اسكو هايسانا ما إلهي وحدانية دي سيئة كلي نقشة دي سيئة حق الله هاي أين اسكو هايسانا ما هل كاسابة تاغنتين وهو ربنا وربكم لماذا النبي سقى إلهي إنه وما حيدين دي ذا إريقاسو وحن كلا إلهي كبربر ودان ما يسكد ديسان أننا عمل كيغان لنا إذن كنا عمل كينا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم معنى ذو حويان تأننا عمل كيغا وكاسا وموقنايا إذن كانوا موقنايا لكم دينكم ولي الدين بيسقب يشبانيسا markii ay diideen xaqi iyo sawaabkii ayaa la leeyahay ka bari noqdo ha u khushuucin oo iyaga hay su dhul dhigin oo ha u mujaamalaynina ونحن له مخلصون سدا وعدايا أنه إلهي بانو مخلصينون مشركين منهن إلهي عيد كلا لما عابدينه أولاد أمسوغينه إلهي بانو طاعدنا إلهي وحوري أدنا سبحانه مركلو كعليا موحى أرانا إنسان إنتنو نبيه كانوا هودا ونصارى مساسا لدي يهود بهانية نصارى لما والله يقال يهودية نصارى وحيين مساسا أرانا إنسان ها أرانينا حتى إلى هذا نوحد كنت هذا قل أنتم أعلم أم الله ما إذن كان ورك إذن كقادنا أجيب بعضا بس إلهي مركا ده إلهي بين كل جوابنا الله أعلم إلهي بقى قرنيا إنه نشيء وحي حقيقة وهاي إن لقاتنا ويت وربحنت إلهي يا وربحنت مخلوق مركا إسخلافته قف كمؤمن كاي وحو قادنا يا وربحنت إلهي سبحانه حتى قالوا واحد بدن دلدلان أو واحد بدن دراسية دين إلهي قرآن كنا وحشيء جيان قرآنكو وأنا قفكم رميستاك كتابك قرآنك يا إلهي سبحانه وتعالى وربحنتيس وأنا وياك وحبك قادنين أدول لكن هذا سيدنا الشيء يا سيدنا أخيرا لقانا يو تاسع عالمي هو تنال الشيء وأنا القرآن كي كسود البودين سبحان الله إلهي وحنا من كي كأذي أرين وين وما نظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يا كظلم بدن ممن كتم وقريوي مرخاتي عنده مرخاتي وهي ويا وشاقي من عند الله مرخاتي إلهي وأشاقي قفك إلهي وروحا يا وحادتك قارسية ومرخاتي كنقي قريي ومرخاتي الدينات قفك قريي يا كظلم بدن هذينا لا أحد أظلم منه كاساو ظلم بدن وسيدي هذا مرخاتيga in la qariyaa waa jariimad weyn markhaatiga diineed la sii qariyaana waa jariimad ka sii daran marka iyagoo ogsoon nabi maxamed iyagoo ogsoon quraanka iyagoo ogsoon ummadda islaamka iyagoo garanaya yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum bayna arki doona sida ubadkooda ay u garanayaan bay rasuulka u garanayaan ayay dafireen wama allahu biqaafilin amma ta'maluun hanjabaadaadu weyn ilaahay ma mooga oo kama war la waxa sameeynaysaa ilaahay wuu og yahay waxa sameeynaysaa hadii lagu yiri qofkii madaxdaada ahaa ama mas'uulkii hebel awood lahaa waxaad maanta sameysay wuu og yahay sawirkaad bixinaysaa waa maxay waa in badan inay joorada dhigayso iyagoo baqanaya bal ka waran ilaahay boqorka haba lagu leeyahay wuu ku og yahay waxaad sameysay ilaahay subxaanahu daw ka waraya ilaahay marka waa tahdiid aad iyo aad u adag gabagabada ilaahay u saaray waxa weeyaan ambiyadaas cid ay ahaayeen إلهي استجع عداية ومدى إسلامك أياكو أبترسن كريسة يهودية نصارنا ملعونين أينما ثقفوا ساسائل هاونا على القارب كريه والله سبحانه وتعالى يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات